Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, Tianshi. Good morning, millionaire. Are you ready? Yes, I am happy. I am ready. maanta insha Allah waxaan bilaabi doonaa tababarkeenan. Tababarkan waa tababaradii productidan ku dhex jirnay. Productigan aad arkaysaan ama caagadan aad arkaysaan waxaa loo yaqaanaa waa Tiani Cell Rejuvenation baa la yiraahdaa. Tiani Cell Rejuvenation haddii aynu eegno waa caagadan aad arkaysaan waa productida shirkadeena soo saarto. waxaa ku jira 150 capsule maanta waxaan ku eegi doonaa markaa tababarkeena insha Allah faa'iidooyinka ay jirka u leedahay cell rejuvenation. Cell rejuvenation haddii eegna hadaba waxay sameysaa reduce sugar level in blood, waxay hoos u dhigtaa sonkorta dhiigga ku badata ama haddii sonkorta dhiigga ay ku badato iyadoo reduce karaysaa way yaraysaa. soo kale waa daawo loo supplement for diabetic, waa daawo loo isticmaalo daawadani sonkorta ayaa loo isticmaalaa. soo kale daawadani waxay xoojisaa kaliyaha ayaa loogu talagalay xoojisaa. soo kale waxa ay hagaajisaa liver cellska ama waxa loo yaqaano unugyada beerka. waxay xoojisaa strength blood vessels endurance, waxay soo kale ay xoojisaa vessels ama nudaha uu sii maro dhiigu ayaabay waxay sameysaa ay xoojisaa. increase the speed of protein growth, waxay fiicnaysiisaa ama kordhisaa speedka proteinka ee jirka koritaankiisa jirka ku korayay ay speedkiisa kordhisaa. soo kale waa antioxidant, waxay sameysaa in qofka xiiqdo kale waxa loo isticmaalo la siiyaa cell rejuvenation. waxay ka hortagtaa qofka neef qabatin kale, anti aging gabowga kale way ka hortagtaa oo qofka inuu jirka degdeg u gabowgo kale way ka hortagtaa daawadani. soo kale anti move free radicals, waxay soo kale free radicals oo dhan way hagaajisaa. free radicals waxa lagu meelaha dhiiggu sii marayo. soo kale promote body immunity, difaaca jirka kale kor bay u qaadaa. daawadani waxay ka hortagtaa waxa loo yaqaan tumarka. waxa weeyaan dadka fiixaha kule cunaha kale ama burada saa u taqaanaan cunaha kale kule ama jirka meel kasta buraa ka soo baxday ayaabay ka hortagtaa iyadoo iyo cancerkana waa loo isticmaalaa. timaha prevent hair grey, waxay u fiican tahay hair grey. timaha qofka hadday ka cadaadaan oo kale waa qofka uu qaadan karaa. reduce low density lipoprotein, waxay hoos u dhigtaa waxa LDL la yiraahdo waa low density lipoprotein. baruurta qofka jirka haddii dhiiggiisa ku badato qofku wuxuu qaadaa xanuunka loo yaqaano cholesterolka. sidaa daraadeed cholesterolkaas oo kale way ka dhintaa. protect you, waxay ka ilaalisaa from stress and fatigue, dadka stresska badan leh markasta fikirka badan iyo daalka badanna way u fiican tahay. improve oxygen uptake in low oxygen environment, soo kale waxay improve karaysaa ama kor u qaadaa oxygen-ta qofka uu qaadanayo uu kor u qaadanayo in low oxygen environment, meelaha environmentiga ama deegaanada ay oxygen-to kale ay ku yartay. iminka inkastoo wadamada Soomaalida aanay oxygen-ta ku yaray, laakiin ka China kaliya India kale waa wadamo ay hawadu ku yarto pollution badan. wadamadaas oo kale qofka ama meel kasta joogo naqas qofku ku dhigo kale uu qaadan karaa. waxay ka caawisaa dadka in good vision, qofka inuu vision fiican maskaxdiisu yeelato, maskaxdiisa dejinaysa qofku markaa vision fiican buu yeelanayaa. act as a blood profile, waxa loo isticmaalaa in dhiigga nadiifiso wax kasta soo gala. waxay ka hortagtaa waxa loo yaqaan wrinkleska. waxa weeyaan qofku markuu gaboobo inuu wajigu uu madmadoobaado ama wajigu jirku isku ururo ayaa wrinkle loo yaqaanaa. taas ay ka hortagtaa. soo kale activate metabolismka jirka ayay kor u qaadaa. metabolismka waxa weeyaan metabolismka activates metabolism, prevent fat accumulation and eliminate toxin. metabolismka waa waxa qofka marka uu tusaale cunto cuno cuntadaas waxa burburiyay metabolism loo yaqaan. marka kaas way dedejisaa saan qofka calooshiisa in badan ugu jirin. waxaanay ka hortagtaa baruurta ama faadka inuu jirka ku ururo and eliminate toxin, waxaanay ka saartaa jirka sunta. daawadani waliba waxay ku jirtaa qaybta nadiifinta jirka ee shirkadda ay soo saarto. haddaba dosage-ka loo qaadanaya haddii ay eegno dosage-ka loo qaadanaya waa sidan. qofku wuxuu u qaadan karaa sidan. dosage-ka adultiga dadka waaweyn waxaad u qaadan kartaa qofka marka hore haddaan qofka hore u cuni jirin cell wuxuu qaadanayaa the first 3 days, 3 cisho hore waxaad qaadanaysaa 1 capsule. 3 cisho hore muxuu qaadanayaa qofku 1 2 3 cisho min hal capsule buu qaadanayaa. after that for 1 week, intaa markuu 3daad uu dhameeyo 1 week ku xigana wuxuu qaadanayaa hal xabo subaxii iyo hal xabo habeenkii twice a day. waad arkaysaa 1 capsule twice a day.
wiiga saddexaad markuu bilaabmana qofku wuxuu qaadanayaa 2 xabo subaxii 2 xabo habeenkii ayaa uu qaadanayaa daawadan tan markaa waa daawooyinka waxay ku jirtaa shirkadda ugu faa'iidada badan leh ee laga arkay faa'iidooyinka aadka u badan markaa aad baad mahadsantihiin waad arkaysaa maanta daawadeenan productigenan Tianis thank you very much aniga tababarkaygii intaas uu ku dhan yahay maanta thank you